soddon sano ka hor waddanka Soomaaliya waxaa baabi'iyay abaaro daran, dagaal sokeeye, taasoo dhiig badan ay ku daatay. Bartamihii sagaashameeyadii ciidamo ka socda waddanka Kanada ayaa yimi isla Soomaaliya, taasoo ay qayb ka ahayd qaramada midoobay howlgalkan bini'aadantinimo. Intaa kadib maxaa dhacay? Ciidamadii ka socday waddanka Kanada ee waddanka u joogay nabad ilaalinta Soomaaliya samcadooda ayaa dhimatay. waxaa ceeb noqday howlgalkii military Soomaaliyana dhammaan waxaa istaagay howlihii arrimaha dibadda. Mogadishu on Monday morning. An anti-government Islamist fighter breaks cover. He soon pays the price. 1969 waddanka Soomaaliya waxaa waddanka Afrika ugu xooga badan wuxuu gaadhay dayaxa iyo military halka ugu sarreysa. madaxweynihii waddanka Mareykanka Ronald Reagan iyo madaxweyne Siyaad saaxiib dhow ayay ahaayeen, halka Siyaad markasta lagu dhiirigelin jiray inuu xukunka sii haysto ilaa xoog laga saaray awoodda waddanka 1991. hogaamiye kooxeedyo iyo awoodo hirdamaya ayaa xukunka saaray madaxweyne Siyaad. labada wiil ee kale ah Ali Mahdi Maxamed iyo Maxamed Faarax Aydiid. waxaa dhintay kumanaan iyo boqolaal rayida oo Soomaali ah 1992. intaa ka bacdi Ali Mahdi laftigiisu wuxuu sheegay inuu yahay madaxweynaha Soomaaliya. xaaladdu way isbedeshay, wax kastana way ka sii dareen. dhimashada dadka waxaa lagu qiyaasay 350,000 oo Soomaaliya, taasoo u dhinteen abaaro daran iyo xanuuno. 1992 qaramada midoobay waxay bilowday waan howlgallo military taasoo lagu sabata bixinaya shacabka. howlgalladaas ay ku jiraan waddanka Mareykanka. sidoo kale waddanka waxaa soo gaadhay ciidamo Bakistaaniyiin iyo ciidamo Kanadiyaaniin. taariikhdu markay ahayd December 3, 1992 howlgalkii military ee ugu horreeyay ayaa bilowday. ciidamo lagu qiyaasay 1,400 oo Kanadiyaana ayaa yimi waddanka Soomaaliya, kuwaasoo ku yimi maraakiib iyo diyaarado. qaar Soomaaliya oo dagaal ogayaala ayaa ka xanaaqay arrintan iyo ciidamada shisheeye yimi waddanka. dagaallo joogta ayaa bilaamay iyo dadaallo la doonayay in dib loogu soo celiyo waddanka. ciidamada Kanadiyaanka March 1993 waxay toogteen 2 Soomaaliya, taasoo ka soo horjeeda qaynuunka caalamiga iyo sharciga caalamiga. howlgalladii military iyo shaqadii ahayd in gacanta lagu dhigo kooxaha ka soo horjeeda dowladnimada Soomaaliya waa lagu fashilmay. waddanka Soomaaliya wuxuu waddanka ugu qanisan Afrika markaynu eegno webiyada, awoodda military iyo qiimaha ku lahaa Afrika. howlgal kastoo military uu ku fashilmay waddanka Soomaaliya, hogaamiye kooxeedyo xoogan kuwaasoo ka helayay caawinta wadamo kala duwan. waxaa ku jirtay gamco shisheeye oo la doonayay inuu waddanku mar dambe u dib u soo dhismin. hase yeeshee wax kasta iyo howlgallo kasta oo la waday iyo arrimo kasta oo la bilaabay fashil ayay ku dhammaadeen. halka ay noo joogto qaybteennan aan kaga hadlaynay xaaladdii iyo taariikhdii waddanka Soomaaliya.